Waan ku salaamay saaxiib. Waayaha ayaa midkiinba meel ka tuuray oo ina kala fogeeyey. Waan u hamuun qabaa in aan nuugo neef hore sambabadaada u soo mushaaxday, oo aan carfista neecaw hore jidhkaaga u soo jiidhay oo udugaagii sidaa. Ileen dadka isjeceli orinta ayay niyadda ku dhistaan, oo horeba waa kii uu Yacquub u ahaa. Waxaa sankayga soo gaadhaya caraftii Yuusufe. Yuusufkayga dabacsanida iyo dadnimada leh ee qurxoonow, haddii aan awood u lahaan lahaa agtayda kama aana durugteen. oo labadeennaba kadeedanka kala fogaanshaha iyo kala dheeraanshaha waa inooga dhib yarayn lahaa. Haddii aan kari lahaa kama aanan yeelin inaan dhulka kugu xoori lahaa. Deegaan kasta oo aadan jooginina aniga waa ii qurbe iyo dal shisheeye. Haddii ay talo gacan iigu jiri lahayd markii ay ceelka gunta kuu dhigeen safarlaydii, waan ka soo horumari lahaa. Aniga ayaana dawliska kuu soo laalaadin lahaa oo kaa saari lahaa qiimo liita oo aan kuu qalmayninna kuguma aanan gadeen. Adduunka oo dhammina waa wax liita oo faraguudkooda ah marka adiga lagu barbardhiga saaxiibkayo. Intaan ceelkaas kaa soo badbaadsado ayaan laabta u gashan lahaa oo aan ku odhan lahaa ha u bixin waa kula joogaaye. Waxa aan qallajin lahaa ruuxdaada ay qooyeen biyaha kala fogaanshuhu, oo inta aan ku soo qabta ayaan ku odhan lahaa aniga ayaa ah walaalaha oo dhan oo kuu buuxinaya kaalintoodii ay baneeyeen markii ay kaa tageen. Aniga ayaa ah hooyadaada aad dadka ugu haystay. Aniga ayaa ah aabbahaaga la ildaran waayitaankaaga. Aniga ayaa ah dhamidoodba, maadaama aan in ka badan inta ay ku jecel yihiin ku jecelahay. Haddii ay talo gacan iigu jirto kama aanan yeelan in ay xabsi ku dhigaan oo ay albaabada dusha kaaga xidhaan. Kamana aanan yeeleen in ay ku tuhmaan oo aniga tuhunka waad igala sarraysaa. Dhankaagana shaki igama gelayo si kasta oo farta lagugu godo. Haddii ay talo gacan iigu jirto xabsi intaan kuugu imaado ayaa niyadda kuu dhisi lahaa. Qurbaha iyo qariibnimadu waa jeel saaxiibkayow, wallaahi waa jeel. Waxaan kuu noqon lahaa rucbaha midhaha ah ee kuu laalaada adiga. Cabaaraha iyo qaleelkuna kuguma ay saameeyeen agtayda saaxiib. I rumayso marka aan ku leeyahay qof kaliya oo noloshaada ka baxa ama kaa dheeraada ayaa kugu filan inay noloshu kuu soo urto oo ay arrini kaa qasanto. Waayitaankiisaas ayaa kugu filan inaad dareento inay bahul weyni afka kugu soo kala qaaday, amaba aad adigu noqotay bahul madow black hole. oo haddii aad meero dhammaystiran liqdo aanu baahidaasi waxba kaa taraynin. Waxaa jirta gaajo uu hal qof uun ha qabtiri karayo, aniguna adiga ayaa kugu gaajaysanahay.